iyadoo maalmahan xaafada ay Soomaalidu u badan tahay ee Islii ay ka jirtay cabsi la sheegayay in la afduubanayo dadka Soomaalida ah ee ku nool xaafadani ayaa maanta waxa la waayay gabar uu magaceedu yahay Hibo Farah oo da'deedu ay ahayd 16 sano jir isla markaana dhiganaysay iskuulka galaaska 7aad gabadha la waayay ayaa saacado ka hor la sheegay in la soo helay haatan waxa uu qorshahaygu yahay in aan tago hoyga reerkeedu ay ka deganaayeen xaafada Islii gaar ahaan California si aan wax uga soo ogaano gabadhaasi saaka la waayay balse saacado ka hor gacanta lagu soo dhigay buuqa iyo saxmadda aad arkaysaan waa qaar ka mid ah dadyowga reer Islii oo doonaya in ay mar uun arkaan Hibo oo haatan la soo helay kadib markii saaka la waayay in badanna baraha bulshada lagu baahiyay si loo soo helo haatan waxa aan soo gaaray dhismaha ay Islii ka degan yihiin reerka gabadha yar ee Hibo Farah waxa ay suura gashay in aan la kulmo Mustafa Abdisalaan oo ah adeerka Hibo Farah waxana wax ka weydiiyay xaaladda haatan gabadha iyo sida lagu soo helay gabadha luntay adigu maxaad u tahay adeerkeedana goorma ay idinku dambeysay gabadha waxa noogu dambeysay saakay 40 meelahaas markay ahayd iskuul loo diray waayahay iskuulka ma kaligeed baa aaday mise qof geeya ama wehliye ayaa la socday ma kaligeed ahay adigu ilaa 10 markay ahayd meelahaas AM waxaan soo wacay macallimiintii iskuulka waxay dhaheen gabadha iskuulka uma goyn jirin marka maxaa jira maxaa ku dhacay markaasaan ogaana marka gabadha inay maqan tahay waayahay ugu dambeyn marka sidee lagu helay gabadha waxaa la helay adigu mar hadda laga joogo hal saac adigu around 8:30 meelahaas 9 meelahaas inta u dhaxaysay ilaa hadda warka si fiican uma kala cadda laakiin sida la sheegay maamo Soomaali ah ayaa la soo wacay waxa lagu yiri gabar Soomaali oo xanuunsan oo wax ku dhaceen ayaan haynaa ayadii baa marka na soo wargelisay sidaasaan gabadhii ku soo helnay waayahay marka la soo helayay ma dhaawacyo jirdilay waxba ka muuqday baadhigeeda dhaawacyo badan kama muuqdaan laakiin sida aan u maleynayno jug xun baa soo gaartay marka hadda isbitaalka jirta oo la soo baaraya waay gabadha markii la soo helay kadib ma idin sheegtay wax dad ah oo socday ilaa hadda warar yar baan gabadha laga helay inay laba gabdhood kale la socdeen السلام عليكم معاميشنا رير نيروبي ee Catch Taxi iyo kuwa cusubba waxaanu idinkugu bishaareynaa in aanu idin sameeynay qiimo dhimis 15% ah tusaale Islii ilaa iyo South Sea waxaad ku tagaysaa 300 oo shilin oo kaliya halka shirkadaha kalena ay yihiin 400 oo shilin Islii ilaa iyo Donholm waxaad ku tagaysaa 340 shilin oo kaliya halka shirkadaha kalena ay yihiin 500 oo shilin Islii ilaa iyo Westlands waxaad ku tagaysaa 220 shilin oo kaliya halka shirkadaha kalena ay yihiin ilaa iyo 300 iyo ka badan Islii ilaa iyo Hurlingham waxaad ku tagaysaa 280 shilin oo kaliya halka shirkadaha kalena ay yihiin ilaa 350 iyo waliba ka badan Islii ilaa iyo garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta waxaad ku tagaysaa 650 shilin oo kaliya halka shirkadaha kalena ay yihiin ilaa 750 shilin iyo ka badan fadlan macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimistan ay ku sameysay shirkadda Catch Taxi kala soo deg App Store-kaaga ama Play Store-kaaga haatan bilowna isticmaalkeeda Catch Taxi waxa ay ka howlgalaan magaalooyinka Nairobi, Mombasa, Garissa iyo Mandera Catch Taxi shirkad qiimaysa macaamiisheeda